لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إلهي ومعد سبحانه وتعالى إلهي سوكي كان يقول قريه سكمدا وحين نسوق صو أرورني na ay tahay inaynu dhageysano waxa ilaahay rasuulkiisa inooga sheegay calayhi salaatu wassalaam waxaana maanta sharaf inoo ah haddaynu nahay reer daarasalaam inuu marti inoo yeeshay sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo aa wada garanaysaan isaga iyo walaalaha kale ee abu talxa iyo keyrkiiba ee khayrka inoo sheegay dhammaantood waxaan le ilaahayow ka yeel qaar ka khayr badan sida aanu u malaynayno una dembi dhaaf waxa aanaan ka ogeyn muxaadarada uu maanta inagala hadli doono sheekh ama mawduuca uu inagala hadli doono mawduuc muxaadaradii u horreysay ah oo inooga dambeyn doono insha allah 2 muxaadaro oo inoo geli doono sabtida muxaadarada koowaad iyo muxaadarada shanaad ama afraad ee ugu dambeysana nadwada ka horeysa isaga ayaa leh ilaahay idankii subxaanahu wa tacaala marka waxaan leeyahay marka mawduuca uu inogala hadlayo maanta sheekh muxaadarada ugu horeysa waxa weeyaan mawduuc aynu u wada baahannahay laab fayoobaanta ama sidee ayaynu laabteenna aynu u caafimaadin karnaa waynu ognahay cudurro badan ayaa jira oo aynu ka ashkatoonayno haddaba cudurradaas anigu inoo faahfaahin maayo isaynu uga dawoobayno waxaan idin kala baxayaa idinka iyo sheekhiina شيخ مصطفى حاج اسماعيل هارون فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسigan ku saabsiisan salaamatu sadr ama laab xaadhnaan laab fayoobid inaan qofku caloosha ka bukin ama aan cil iyo cadho caburinin ama aan ku taallo ku seexanin markaynu dhahno laab fayoobidu islaamka ama diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey guud ahaan dadka muuminiinta bay walaaleysaa waana isku xidhaa calaaqa ijtimaaciyaba u yeeshaa waxaa ka baxa wixii colaad iyo uurxumo iyo ciil iyo cadho laysu qabay iyo xaasidmiya wax lamida dhammaantood baa ka baxa markaynu laabfayoobida ka hadlayno dhan waa ka cibaada waa qurba ilaahay loogu dhowaado dhanna waa waxyaabaha sababa bulsho inay wada noolaan karto oo haddii bulshadu xanuunada laabfayoobida cagsigeeda ku ah kasoo horjeedkeeda ay ku dhacaan oo ah ciilqab iyo uurxumo iyo isqabsi hadday ku dhacdo bulsho jirta ma noqoto idan qadiyadda tan inta badan waxaa laga waramaa muuqaalka sare laakiin waa qadiyad ku saabsiisan quluubta iyo inta qarsoon oo ah xaqiiqo ahaan meesha rabbi eego aadanuhu inta badan wuxuu jecel yahay muuqaal qurux badan in lagu arko qofna ma jecla subaxii markuu soo tooso isagoo aan toilet kaba gelin inuu suuqa usoo baxo qofna ma jecla waayo wuxuu diidan yahay isagoo fool xun inay dadku arkaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wejiyadiina ma eegayo meel kaluu rabbi leeyahay anigu halkaasaan eegaa quluubtiina iyo acmaashiinaan eegaa ka waran adoo qalbi fool xun la soo kacay ama la soo toosay oo rabbigaa hortiisa isla taagay aakhirana qalbigaa nabadqabkiisa iyo caafimaad qabkiisa oo kaliya lagu badbaadaa sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay
yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalinta aan adduun wax tarin qof ula yimaada mooyaane rabbigii qalbi caafimaad qaba. bulshada muslimka ana ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu saxaabadii sifeynayay waxaa lagu tilmaamay muxamadun rasuulu llah waladiina macah ashidaaء cala اlkufaar ruxamaaء baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana. nebi maxamed waa ilaahay rasuulkiisii baa la yidhi, isaga ammaan waxa ugu filan masaladaasoo kaliya inuu ku rabbi doortay yahay. saxaabadase saddex sifaa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. sifa waxa weeyaan xidhiidhka ilaahay la lahaayeen oo ilaahay wuxuu ku tilmaamaya taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana. waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshiisa iyo dheeraadkiisa raadcaynaya. kaasi waa xidhiidhka iyaga iyo rabbigood ka dhexeeya. makhluuqaadkan dunida kor saaran siiba aadanaha ilaahay laba qaybood buu u qeybiyey. qayb waxaa la tilmaamay waa qayb gardarro badane waa rag iska dhiciya baa la yidhi, adag oo iska dhiciya wax, waa qolada gaaleed. qeybta kalena ilaahay wuxuu tilmaamay mu'miniinta ah inay ruxamaa u yihiin, dad u naxariista, dad col isuma naxariistaan, dad aan laab fayoobi isuma naxariistaan, dad aan wanaagga isla jecelayni isuma naxariistaan. sida awgeed ayuhal axiba, ilaahay markuu saxaabadii u manno sheeganayo, manno sheegadku waa gallad sheegasho, waxyaabaha nimcooyinkii rabbi siiyey markuu tilmaamayey, ilaahay wuxuu ku tilmaamay nimcooyinka waaweyn ee la siiyey inay ka mid tahay wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana. waxaa xasuusataan nicmada weyn ee alla idin siiyey markaa colka ahaydeen ee qalbiyadiina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isu soo dumay. nebi maxamed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala isna ugu gallad sheegtay ama ugu manno sheegtay oo rabbi wuxuu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam, koox qalbi caafimaad qabata wadataan ku siiyey baa ilaahay leeyahy. ninka qaa'idka ee hormoodka ee dad hogaaminaya, dad nabad qabuu hogaamin karaa, laakiin dad qofba qof reebayo lama hogaamin karo. mahmaa uu hogaanku fiican yahay ka inoogu taqisan haddaynu xagga sare saarno madax ka dhiganno, suurtagal ma aha oo ma fududa inuu ina hogaamin karo inagaan qofba qof rabin, gobolba gobol rabin, reerba reer rabin, dadba dad doonaynin. suurtagal maaha inuu ina hogaamin karo walow uu daacad yahay. sida awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nebiga ugu gallad sheegtay, huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum. ilaahay waa ka kugu gargaaray baa la leeyahay nebi maxamedow nasrigiisa iyo wa bilmu'miniin, koox mu'miniina, kooxdaasi oo ilaahay qalbigooda walaaleeyo isu dumay baa la leeyahay. haddaba ayuhal axiba, walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin. waxaa loo baahan yahay xanuunada badan ee ilaahay kitaabkiisa uu ka waramayo, alghillu walxaqdu walbagyu walxasadu, waxaasoo dhan in laga caafimaad qabo. soomaaliga inaanan kuba wada garan baa suurtagale. waa waxa laaliya wixii uur xumo iyo uurku taallo iyo xaasidnimo iyo caloosha wixii dhibo oo dhan. qofka muslimkaa saddex meelood unbaa meel laga rabaa inuu deganaado, inuu ka hooseeya marnaba sharciguma soo dhoweynayo. martabad iyada waxaa gaadho oo qura dad gaar oo ilaahay doortay, waa martabatu liithaar. naftaada inaad nafta walaalkaa ka horu marisaa, iyadu waa martabad dad gaara uun. ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamay wayu'iruuna calaa anfusihim walow bihim wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. martabad labaad ayaa jirto oo ah walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato, an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik. martabad ka hooseysaa jira labadaaba, waa tan aynu ka waramayno. waa qalbigaagu inuu caafimaad qabo, at least inaad bukin.
ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba, ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto. maanta masaa'il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno. maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan. ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahay, ma aha inuu dadka ka caqli yaryahay, ma aha inuu dadka ka hubi yaryahay, waxaasoo dhan maaha. ilaa nuclear weeban bay haystaan. laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa? waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan, dabeetana ninba nin rabo inuu reebo, ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo, midba miduu bagaleeyay jabkiisa. mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guulaysto, midhmidh uma guulaysto, koox kooxna uma guulaysto, dowlad ahaanna uma guulaysto. walidaalika caalamulislaami waxa yaalla waa urxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya. meel kastoo dagaal ka dhacayo, gaalada qaar baa la safan, qaar baa dhan kale u safan, dhammaantood baa colaada iyo urxumadu dhex taalla. dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo, oo soomaalidu ugu horeyso. soomaalidu way soo kartay, dhib tiro badan baa soo gaadhay, in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taallay. hadda dad badan baa waxay leeyihin aan dib u midoowno, dib u midowno. haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa? su-aasha waa taa. haddaan laabtu caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa? haddii xanuunada tani, idan kelimatulmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto, in dad wax wada yeelan kara ay noqdaan. qof kasta oo raba inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan iscafiyo oo isa saamaxo oo laabta bukaanka ku jira inuu soo baxo. qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan, qof qura xataa hadduu yahay, wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba, isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn, isagoo aan laabtu huraynin. dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila. maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhidu ku dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa, isagoo ciil qabu sariirtiisa tagaa. haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nebi ibraahim inooga waramay baryadiisii, fiirso, nebi dhan oo rabbi soo diro oo ilaahay baryaya, muxuu leeyahy? walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahayow hay hoojinin buu leeyay maanta dadka lasoo saarayo, maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin, maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu. culamadu waxay yidhaahdaan, meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu lqalb waa laba shay. midna waa salaamatu lqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin, laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay towxiidka aad u khaalis yeesho. midna waxay yidhaahdaan waa salaamatu sadri ah, in makhluuqaadka siiba dadka mu'miniintii inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laabxumo iyo dhib aanad u hayn. walidaalika nebi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi waina min shiicatihi laibraahim id jaaa rabbahu biqalbin saliim. nebi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi, dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mid a. id jaaa rabbahu biqalbin saliim baa ilaahay yidhi, markuu rabbigii ula yimi qalbi saliima. idan ayuha alaxiba, in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab, aday kuu tahay caafimaad qab. walidaalik aakhiro dadka jannada ku jira nicmaysanaya xanuunka ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inay ka caafimaad qabaan. macnaheedu waxa weeyaan nicmadii jannada inaanu dhadhaminaynin qofka laabtiisu ay nooca kan tahay.
سادرادد با إلهي وحولي هدابا النعضي إن بشرتو جنة إلهي وقري كوا لغا السيباب النغنية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وحنو كسبنا با إلهي يلي وحي لابتودا وحما كجري وحي حما كجري معنى هذه وحويان صاحب النعمة ماها قفك لابتي سبكتها حتى في الدنيا مركعكم معها هذا ربط أهل الجنة سيدي ونوليين وكلاين أدون نولاتو أدونك تشوغا نقم حي مثل لابتي سعاف ما قبطه أهل الجنة إلهي وحكوت المام وهدوا إلى الطيب من القول ورحم بما مغلان هل كان ورحنا بدن بعد مغلي لكن واحد أباهن تهي إن هذا اللابت هذا كشقيس مركان دي بقول نقولنا صحابة دي أنصارية مهاجرين إلهي قرآن كوكو أمانة مهاجرين والله أمانة أنصارنا والله أمانة أمان تودا ونقول مايو إلهي وحو كلو أمانة كوي إيجا راعي أنصارية مهاجرين كوي راعي كوي راعي محاو علامة إلهي سبحانه وتعالى لبا شيء بكوت الماما من وين الرب قد بري أيان وكحرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون كوي صحابة الدبديد يمي وحي أورانا ينبا إلهي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إله نور نحرسا النغا إيا ولا الذي نغوه الرئي إيمانك نغوه الرئي مسلمين تهور البنتي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أنت مؤمن كي أما أنت تشوكتنا ما يمن دونتنا إله الله بتيادا حمى هوقلني غلا بيلين علماء الأصول أو علماء اللغة وحي هذا نكرة في سياق النهي تعم غير هذا هذا النكرة غير معرفة شيء هذا كسا أراره سيق نهي وكتشره لا تجعل في قلوبنا غلا ويعام يشاء معنى وامحي وحويان إله غل مدير إيا مدوي مد مغضى إيا مدان موقن غل لما أنت ربه نجا إلى لبيلي هذا بقى أيها الأحبة هدي مؤمنين تكدم بيسي صحابة علامة كان لو قد إلى قيام الساعة تتكبر بما أنت النور مسلم كي هوري لغا روغي لاي مسلم كي هوري انتي لغا روغي لاي بل انتو دي ugu mudnayd سميدان مقال قال أبي بكر إيو عمر إيو عائشة إيو صحابة نبي محمد إيو محل إلى هذا صحابة مكهر الله يوحك شيء شد كان مهيا شد كان مهيا وهي صحابة ضدك الراعي وحاو أهبار رب تلمام يا ضدك شد صحابة هيا وقوة محي أن قلبي قود حمكوتشرين إسلام مركان إلهي أبريا كوي كوري نعضل يا وامحي أهل النار كإلهي وحولي كلما دخلت أمة لعنت أختها والله مركان نار تقشبا تيك على نار تقشي أي نعض الشابا ربي سبحانه وتعالى وكت المامية تام معنى يدوا محي تطبع ماتنا النول علماء المسلمين تقال لك الرقي لأي أما دادك مسلمين تو حاجة شيء فدكو ديرك تكبر صومالي ده قف مسلمون بالله حمانا يا الله وضع ورغم كي إسلامكو كاما رغم كي إسلامكو حويا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كويلا إله الله بتيضا حما هوقا لين انت إيمانك لغا هلاي وكوا سيداسي كدو عيسانية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حينات المامية صفوة الله المختار كو إلهي الدور طيف يعني وكوي سؤال بقى النبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام حديث ابن ماجه بيهقي في شعب الإيمان ورنا يا شيخ البابن صحيح كنت المامي قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد نبي عليه الصلاة والسلام وحل ويدي ضدك يا أم ضن
dadka yaa u fadli badan yaa mudan yaa la horaysiin wuxuu nabigu ku yihi kullu makhmuumi lqalbi saduuqu lisaan labadaas sifa ciddii leh saxaabadii waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaanka carabkiisu ninuu run sheego runta laazima beentu waa calaamada munaafiqiinta iyo gaalada lagu garto inamaa yaftari lkadib aladiina laa yuuminuun intaan ilaahay rumaysnayn baa beenta sheegta baa ilaahay yidhi beenta abuurta munaafaqa markii laga waramayana waxaa la yihi idaa xadatha kadab saddexdii calaamadood ee munaafiqu lahaana waxa weeyaan hadduu waramayo been buu sheegaa idan sidqu lisaan waa simat lmu'min wuxuu nabigu leeyahay runtuna khayrkunbay kuu hogaamisaa ilaa jannada aad ka gasho beentuna fujuurkay kugu hogaamisaa ilaa aad neerta ka gasho sidaa awgeed saxaabadu waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaani nacrifu kan carabkiisu runta sheega garanay ee famaa makhmuum lqalb makhmuum lqalbigu waa maxay wuxuu nabigu ku yidhi waa attaqiyu naqiy waa mid alla ka cabsaday oo nadiif ah laa ihma fiihi walaa bagi dembi iyo bagi ama xadgudub iyo qooq ma laha walaa gilla walaa xasad buu nabigu yihi uur xumana ma qabo waa nin alla ka cabsada oo nadiifa buu nabigu ku tilmaamay ka alla ka cabsada nadiifti waa maxay waa mid aan macaasida dhumban dulmigana samaynin laabtiisuna ay nabad qabto oo gil iyo xaasidnimo ay ka nabad qabtaa buu nabigu tilmaamaya ayuha alaxiba bini aadamku markuu loolanka galo nowcun ma waxbuu dareemaa laakiin waxaad u baahan tahay mucaahada qalbigaaga inaad ogaatid maradaada haddaad suuqa marto oo cabaar soo shaqaysa maxaa ku dhacaa oo iska gowdaa waa normal in uska ku dhaco markaa maxaad samaysaa saabuun iyo biyaad ku maydhaa waxaad ka dadaashaa maradaada tan wixii caadiyat ilxayaa kusoo biiray inaad ka nadiifiso bini aadamku markuu loolanka galo tartan wax ka mida markuu galo sawaa inuu siyaasad ku tartamo ama inuu tijaarad ku baratamo ama inuu tacliim iyo cilmi ku baratamo xataa mararka qaarkood dacwo iyo sheegisteed inuu ku baratamo qur-aan la dhigayo iyo malcamado iyo dacwo iyo wax la sheegayo majaalaat ilxayaat oo dhan isku dar dadku mararba qalbigoodu uu soo galaa markaa nooc min gili iyo xaasidnimo iyo wax iska dhicisku waxay yidhaahdaan salaamatu sadriga waxaa ugu dhib badan inta isku xirfadda ah bay yidhaahdaan inta isku xirfadda ah ayaa marar badan waxaa dhacda inaanay isu laabfayoobin maalan kooxda siyaasadda ku wada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan oo isreebayaan kooxda tijaarada ku wada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan kooxda tacliimka waxaa laga yaabaa kooxda wadaadnimada ku jirta intii alla badbaadiye mooyaane inay isreebayaan wadaad sareedaayo kooxda qur-aanka dhigta waxaa laga yaabaa malcaamiba malcaamad nawcun ma inay reebayso laakiin maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qofku inuu nadiifiyo qalbigiisa inuu soo jeedo inuu is ogaado inuu ogaado war maxaa kugu soo biiray walaalka iyo adiga maxaa idin dhex maray meel waxaa lagu yidhi ku dagaalan oo yaan cidi kaaga hormarin waxa kaloo dhamina musaamaxa lagu yidhi meeshee lagu yihi ku dagaalan jannada yaan cidi kaaga horeyn limithli hada falyacmal ilcaamiluun walyatanafas ilmutanaafisuun sida ogeed bay culamadu waxay yidhaahdaan qurubaadka iihaarku kuma jira bay culamo badanay qabaan waxaa naftaada laga horumaray qurubaadku kuma jiraan wixii alle loogu dhawaanaya maalan safka horea meelay ka banaantay adaa aw hebelow safka hore gal lama yidhaahdo adba jannada waad u baahantahy aw hebelkaama janno jecla sacankaa maaha adaa janno u baahan idan qurbada ilaahay u dhawaanshihiisa cid la yskama horumariyo hebelow adigu xagga alle iga mar lama yidhaahdo xagga alle adigu u dheeree xagga adduunkaa la yska horumariya adduun markuu wuxuu yahay ee adduun ku saabsan yahay baa cidda kale la yska horumariya laakiin markuu ku saabsan yahay ilaahay u dhawaanshiyihiisa walidalik buu nabigu wuxuu leeyay safka hore haddaa ogtiin waxaa ajar ku jira intaa isku qabsataan waa maxay waa laydin qori tuuri lahaa saa uu nin waliba u rabo ninka kale inaanu u banaynin waa qori tuur baa ka dhici lahaa buu nabigu tilmaamaya idan markay arrintu janno iyo ilaahay u dhawaanshiyihiisa tay isku day inaan lagaa dheeraynin
markay baab adduunyo tahay qalbigaaga dib ugu noqo. waxaad u baahan tahay in badan maxay salaamatu sadr. waayo hadday laabtu bukooto balaa ka dambaysa. waxaa ka dambeeya xanuunadan ka warramayo oo dhan ee xaqdi iyo xaasidnimo iyo ciil iyo urkutaale iyo urxumo o dhan baa ka dambeeya. waxaa ka dambeeyo intaa kaaga daran in xataa acmaashii adduun ama laga aqbali waayo ama ilaahay toobad kaa aqbali waayo. maala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka muslim warinayo, albaabada jannada waxaa la furaa khamiista iyo isniinaha. waa maalmuu nebigu soomi jiray inta badan. waxaanu naqaanaa ramadaanna in la furo. haddii goor soonta iyo albaabada furistoodu in badan baa nusuustu isku xidhaa. albaabada cirka iyo kuwa jannadaba waxaa la furaa maxay maalmaha kan. fayugfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shay-a. ilaahay wuxuu dembigiisa dhaafaa qof kasta oo mu'min oo ahlu tawxiida. laba laakiin ilaahay wuxuu dhaha iyaga arrinkooda dib u dhiga. wa ayo kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa-un fayuqaalu andiruu haadayni xataa yasطilxa. laba walaaloo isa sudhnaa oo uurxuma jirtay, iyaga waxaa la yidhaahdaa dib u dhiga. marka adduun qura waayi maysid. adduunyadu dee markay cidhiidhiga gasho waa luntaayeen oo colaad iyo beliya baas baa ka ratib. laakiin adduun qura waxaad waayeysaa maahae waa maxay dembi dhaafka allaad waayeysaa. sidaa ogeed waxa fiican ilaa man ata allaha biqalbin saliim buu qur-aanku tilmaamayay. ma liibaana aakhiro nin la yimi qalbi caafimaad qaba mooyaane. xaasidnimada iyo xaqdiga iyo colaadda iyo reebninku balfiiri ama daymood ama dhugo ama eeg inta waxa uu inaga reebayo, inta dhiba uu kuu geysanayo. dadka laabtoodu caafimaad qabto nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kooxda ugu horeysa ee jannada gelaysa sida leylatulbadriga 14 dayaxoo ah ayay u galaan. kooxda ku xigtaa buu nebigu yihi xidiga ugu iftiinka badan le sidiisoo kale iyagoo u muuqda ayay galaan. kuwan calaamadooda waa maxay? wuxuu nebigu ku sifeeyey quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxidin la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud. kuwan qalbiyadoodu waa sidii nin quro baa ilaahay leeyahy oo wax khilaafa iyo wax isu cadhays iyo kuma jiraan. idan waa dad laabfayow baa laleeyahay kuwan jannada xagga hore ka gelayaa buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. deetana wuxuu sii sifeeyey waxay nimco helayaan oo dhan. xadiid imaamu axmed uu wariyo dadku inta badan laga yaabo inay maqleen, aimada qaarna ay tasxiixiyaan. sheekh ilalbani raxmat ullaahi caleyh intuu markii hore tasxiixiyey, marka dambena uu isagu ka noqonayo tadciifinta uu badanayo. xadiidkan culamo hore badan oo ka horeysana tasxiixisay wuxuu sheegayaa waa xadiidkii maxay anas ibnu malik uu warinayey ama riwaayadka qaarkood. calaa kulli xaal xadiidka macnihiisu wuxuu sheegayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nebigu yihi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a. nin nooloo soconaya buu nebigu leeyahy ahlu jannah ka mid a. dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita. maalin dambe ayuu haddana nebigu yihi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya. isla ninkii unbaa soo galay. mar saddexaad ayuu haddana nebigu yihi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya. haddana ninkii unbaa soo galay. saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya, bal raadcee. dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo. ninkii wuu martigeliyey. 3 habeen buu la seexday ninka gurigiisii. habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto. cishuhuu tukadaa, wixii ugu tir alla u qoray salaad buu iska tukadaa, waa iska seexdaa. habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa, waa istakfurlaystaa, yani waa dikriya. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka wayse qab ku seexda habeenkii markuu soo kaco subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah idhaha allahuma kfir li, ilahay dembigiisa waa dhaafaa. markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yaro kooban akhrista, ilahay dembiga waa ka dhaafaa. ninkan intaana waa sameeyaa. 3 maalmood markay dhammaatay
ayuu wuxuu ku yidhi cabdillaahi bnu camar, warniya waxaan rabaa bal inaad ii waranto. salaada subax markay soo dhowdana wuu kacaa unoo dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulama. wuxuu hi niya wax dhibi ma jirin, waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato. camal weyn oo gaaroo lagugu tilmaamana maan arag, ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ahlu janno ah, dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataay, wax ii sheeg buu ku yidhi. wuxuu ku yidhi intaa aada aragta mooyaane wax kale ma sameeyo. isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu u yeedho, wuxuu yidhi laakiin midaan kuu sheego, qof muslima qish iyo khiyaamo kuma sameeyo, wax xaasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan. cabdillaahi wuxuu yihi haadihi alatii balagat bik wahiya alatii laa nutiiq. waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi, annana aanu kari weyn. in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laabxumo ugu haynin waa masaladan buu leeyahy. masalada idan ayuha alaxiba waxaan leenahay ahlu janna wanazacna ma fi suduurihim min gilin ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin wanazacna ma fi suduurihim min gil tajri min taxtihim alanhaar. ilahay baa ku ammaanaya taabiciintii waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan. haddaba inaad laabfayoobaataa adiga caafimaad qabbay kuu tahy. waxaad seexanaysaa adoo miyir qabo, caafimaad qabo, wax dhibi ku hay. adoo ciil qaba haddaad tidhaahda seexana gamiba maysid, 9 jeer baad hurdada ka toosaysa, iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso urkutaalooyinka iyo wixii dhibku haysatay. waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan. walidaalik qur-aanka u fiirso, ambiyada ilaahay markuu sifeynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mid a inay dad laabtoodu nadiif ahayd. yani waa min sifaat alambiyaa. haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay id jaa rabahu biqalbin saliim, nebi maxamedna anas ibnu malik xadiidku warinaya waa kale, man taqama linafsihi, weligii ma argoosan. macnaheedu waa maxay? madax ciil qabta hadday dad hogaamiso waa la jabaa. nin isla aargoosa ama reer ribal xabaal ama kuwa garbi ama siyaasiyiinta intan kale xabaal ama nin ciil qaba hadduu madax noqdo waa laguma guuraan. nin laakiin laabtiisu caafimaad qabto dadka inuu kor wado socda hadduu yimaado waxbuu hogaamin karaa. walidaalik ambiyadu waa qaadat lumma, waa dadkii bulshooyinka adduun soo hogaamiyey, waa hogaanadii ilaahayba doortay de hogaannimo loo doortay. walidalik baa ilaahay nebi maxamed wuxuu ku tilmaamaya man taqama linafsihi abad, weligii ma aargudan. nin intuu hogaaminayay ka aargudanaya muxuu soo kordhin? weligii ma aargudan baa la yidhi nebi maxamed. caasha waxay ku tidhi ridwaan ullaahi calayha wa can abiha, maalin uxud kaaga dhib badan miyaad aragtay ilaahay rasuulkiisiiyo? dabeetana wuxuu yihi waxaan tolkaa kala kulmay malayn maysi. markii layga saaray maka ee aan tegay daa'if ee haddana wax magaratada laygu diray dhagaxa laygaga soo saaray, waan socday buu nebigu yihi ilaa iyo qarnu thacaalib meel la yidhahda markaan marayay baan baraarugay. lama fiq buu nebigu tilmaamaya. yani qofku markay dhibto ka badato waa iska socday unbuu nebigu leeyahy. wuxuun baan kala gartay anigoo maraya maxay meel la yidhaahdo qarnu thacaalib markaan marayay. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo geystay ayaa jibriil u dhawaaqay. dabeetana wuxuu jibriil ku leeyahy in allaha qad samica qowla qowmika wamaa raddu calayk. ilaahay waa maqlay tolkaa waxay kugula hadleen iyo waxay kuugu jawaabeen. rabbina wuxuu kuu soo diray malagii buuraha maanta inaad amarto ee waxaad doontaa amar. malakuljibaal wuxuu yihi reer maka labada buurooda hareeree ka xiga aan kor u qaadaya, dushaan ka saaraya haddaad adigu amarto. nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam makiina waa tii nebi maxamed tuntay ee magaalada uuga baxay. gaala hadday ku disho malag lagu soo diray maxaad yeeli lahay? ilaw midha ka reebin soo maha dee. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo gaalo ah oo magaalada ka saaray oo dhibtaas qabsatay oo kuwii kale soo eriyeen ayuu wuxuu leeyahy bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdahu walaa yushriku bihi shay. maya ilaahay baan ka rajo qabaa inuu dhabaradooda iga soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo towxiidsada waan cidna ugu shirik yeelin.
amal kaasuu qabaa. mustaqbal madoobi uma muuqdo inkastoo la diiday, qalbigiisuna ma buko. waa argooso iyo nimankii waxaa kugu sameeyey adna aakhiro ku hubi ma aha, ee aadanaha inuu naar ka badbaadiyo. guntigaan idan hayaa buu nebigu leeyahy o naartaan idinka xejinaya, idan xagga naarta usii yaacaysaa. saa daraaddeed buu maalintii Uxud markii dhibtu soo gaadhay uu godka ku dhacay ee koofiyadii gashay ee iliga hoose laga jabiyey salaadihii fadhi uu ku tukaday dhibtu qabsatay, ayuu nebigu wuxuu ihi allah maxay yeeli duul wejigoodii dhiiggaa saa uga daadiyey, maxaa xaalkood noqon? cadha alla way badantay. ilaahay baa qur-aan soo dejiyey la yidhi laysa laka min alamri shay. dabeetana wuxuu leeyahy allahuma kfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun. waxba garan maayaane. yacni gaaladii ilaahay leey waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin. kuwa ilaahay yidhi way kaa soo saareen iyagoo rabay inay ama ku xidhaan ama ku dilaan ama ku bixiyaan, go-aanka ku qaatay inay dilaan, ee ilaahay subxaana wa tacaala kasoo badbaadiyey ayuu isagoo 8,000 oo ciidana u yimi wata. maxaa filaysaan buu ku yidhi. waxay idhaahdeen akhun kariim wabna akhun kariim. muu aargoosan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa tatriba calaykum alyowm, canaani korkiina ma aha, iska taga. idan dadkii dadka hogaaminayey saasay u fekerayeen. qisada nebi yuusufna in badan baa laydinka warramo. nebi yuusuf walaaladii oo god ku riday oo xidhay oo dhib u geystay, oo haddana masabiday oo yidhi kan yari hadduu xaday walaalkiiyo ka weyn baa tuug ahaan jiray. waa yuusufka hortaagan ayay leeyihiin, walaalkiiyo ka weyn ayaa tuug ahaan jiray. ayuu haddana iska cafiyey. tallaahi laqad aataraka allahu calayna wain kunaa lakhaaiin. markuu ku yidhi laa tatriba calaykum alyowma yakfir allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin. yacni laabta muu bukin iyagoo god lagu riday oo aabihii laga kaxeeyey oo addoonsi galay oo xabsi soo galay oo soo rafaaday noloshiisa qeyb ka mid oo sanawaat ah. xabsigoo quru 7 siniin 7 sano wax ka badan ku jiray, intaasoo sanadood baa la addoonsanayay. god cidlaabu waxaasoo rafaada walaaladiisii soo mariyey ayaa u yimi iyagoo baahan, isagoo madaxa. markaasay haddana isagoo madaxa oo aanay garanaynin weli caayayaan oo leeyihin kan yare hadduu xaday mid hore ay walaalahaayeenoo tuugaa jiray. markaasuu ka xishooday inuu yidhah war idinkaa tuuga, idinkaa xumaa, oo god igu riday. waa cafinaya, haddana wuxuu leeyahay dambi korkiina ma aha. bal waxay culimmadu yidhaahdaan wuxuu ilaaliyey khawaatirtooda oo markuu ducaysanayey xataa ma odhanin ilaahay ana jeelka iga soo saaray, idinkana abaarta idinka keenay, ila abaar baa ku dhacday. labadaba waa asturo, kaana waa iska dhaaf. ilaahay godka iga soo saaray ma odhanin, wuxuu yidhi ilaahay jeelka iga keen. jeelka iyo godka iyamaa xun. god cidlaabaa xun, jeelka dad ba ku noole. god cidlo labadegaa haddii lagugu rido dee jeel ka daran. laakiin isagoo rabbi rabo wuxuu nimco siiyey inuu ka waramo ayuu wuxuu ilaaliyey khaatirka walaaladii. godkaayo haddii la sheego dee walaaladii xaalkoodii baa soo baxaya. dabeetana uu iska daayo, gaaladu intay u geysatuu sheegay ilaahay anigana jeelka iga soo saaray. idinkana mu odhanin abaarta idinka keenay ee wuu asturay, idinkana baadiyaa idinka keenay buu leeyay. yacni wuxuu diidan yahay wax hangaruufo ah isaga iyo walaaladii maxay inay dhex maraan. min bacdi an nazaqa shaytaanu beynii wa bayna ikhwatii. mu odhanin markaa dhibta ii geysateen, markii aniga iyo walaalkay shaydaanna dhex maray buu leeyahay, aniga iyo walaaladay shaydaanna dhex maray. idan waa nebiyadii. malaha waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dee anagu ma nebiyaanu gaadhayna, qaaraan nebi ahayn aan ka warramo oo qur-aanku ka warramay. ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa qiso hore fi suurati yaasiin. wadrib suuratu yaasiin ilaahay wuxuu ka warramay 3 rasuul oo magaalo loo diray. rasuul baa la diray markaasay beeniyeen, mid labaad baa laga daba diray markaasay beeniyeen, mid saddexaad baa laga daba diray. 3 rasuul baa la beeniyey. 3 rasuul markii la beeniyey ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa
nin kale oo aan isaga rususha ahayn وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إلهي وحولي مقالة حقا ودن بيسا وحكي منين وقهرين نين قوبت جوغيبا ما أهين وركا قاري النبي الذي دبا تنوس حلقا ما حلمو إسا صار هل كاسو يمي با إلهي يدي وحكا إلهي الراعي قابكو يمي ما هين نين عاجسة isagoo rooraya oo inuu arrintaa wax ka qabto raba ayuu yimi baa ilaahay yidhi wajaa min aqsa almadiinati rajulun yascaa wuxuu ihi waar tolkayow waa raaca rasuullada cid aan waxba idinka doonaynin idinna hanuuninaysa aadanuhu inta badan soomaalidu maxay odhan jirtay wadaadka wacdigiisa waxaa ka dambeeya maxay waxisi markaa wacdigan hore dadka mari maayo mar haddaad waxisi la daba taagantay waa kollay dantu wataa uma waxii dhiiba weeyaan kan ilaahay wuxuu ku sifeeyey inaanu taa wadanin wuxuu leeyahay waa raaca rasuullo idinna hanuuninaya waxna aan idinka doonaynin aadana haddii xagga jeebka laga maro wasgeejiyaa qofkaad rabto qalbigiisa inaad furato inta badan ha isku dayin jeebkiisa inaad furato dabeetana waxaa rabbi ku yidhi waa diideen isxilqaamku intuu leegayna u fiirso saddex rasuuloo la diiday ka warran innagu waxaanu idhahaa wadaadadii baa jooga oo idinka maxilka idin saareen markaa muxuu yihi ninkani meel saddex rasuul joogto ayuu iska xilqaamayaa wuxuu iska xilqaamayaa inuu qaban karo dadka inaad tidhaahdo war wacdiga dhegaysta war kaalayo diinta dhegaysta uma baahna wadaad war khamriga iska daa war zinada iska daa war salaada tukada war rabbigii ka baqa war wanaagga laga shaqeeyo uma baahna wadaad nin walba muslim wuu garanaya laakiin isxilqaankaa yaraaday dabeetana hal wadaad ama muxaadaro jeediya ama imaam kelmad yidhaahdaa diintii baa laga dhigay asalkuna wuxuu ahaa dadka muslimiinta oo dham inay diinta iska xil saaraan waxaa gaala idinka idin sugayaan aakhiro su-aashooduna khatar weeyaan inay yidhahdaan ilaah way nala joogeen oo jeebakaygay baadhan jireen waxba noomay sheegin way noo soo hunguri doonteene diinba noomay sheegin waa su-aal khatara ninkan ilaahay wuxuu yihi meel fog buu ka yimi isagoo roorayuu yimi caynkaasaanuu yimi haddaba intaasoo dham iyadoo cajaba wax kasii cajab badan baa ilaahay sheegay waxay culamadu yidhaahdaan ninkani mabdi'iisi buu casdaystay wamaa lii laa acbud maxaa aniga aan u caabudi waayo rabbiga iyo cidka mabdi'iisii oo dhan buu caddaystay kadibna isagii bay dileen waa la dilay meeshu meel sahlan ma ahayn meesha ninkan iska taagay waa meeshaa keensatay in la dilo waa la dilay ilaahay intuu ifka joogay warkiisii wuu inoo sheegay aakhire markuu tegayna ilaahay baa warkiisa inoo keenay haddana warka aakhire ka cajo badan ilaahay wuxuu leeyahay qiila dkhuli ljanna war jannada gal baa la yidhi markuu diinta usoo dhintay dabeetana wuxuu leeyahy qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukrimiin yaa layt alla jeclaan lahaayee buu leeyahy tolkay inay ogaadaan oo og yihiin sida rabbi igu dambi dhaafay iyo sida lay karaamay kuwii dilay buu weli khayr la rajaynayaa laabtaan bukin kuwii dilay ayuu khayr la rajaynayaa adigu hadday gaala ku disho oo dad diinta diidan ay ku dilaan oo had aakhare qabato oo ilaahay wax ku weydiiye maxaad odhan lahay waxaa laga yaabaa inaad odhan lahay bal jannadu horta hay dambaysa raggii aanu shaynay rabbo godka naareed ku hobi laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ninkan aakhiro jooga markii horena meel fog buu ka soo cararay inuu dadka diin u sheego iminkana isagoo dhintay ayuu wuxuu leeyahy alla tolkayaa u sheega sida rabbi ii nimceeyey ayda igu dambi dhaafay iyana ha islaamaan weeyaane taa macnaheed waxa weeyaan waanu ceel qabin si kale haddaynu tilmaamno waxa weeyaan laabtiisaa caafimaad qabtay taasaa waxay sababtay inaanu dareemin waxaan oo dhan waxaa qur-aan iyo axaadiis badan ku soo arooray abubakar qisadiisii uu ninkii mastax ibnu athaat yidhi waxbaan ka jarayaa ee ilaahay subxaana watacaala yidhi iska cafi walaa yatali ulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu ulu lqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fi sabiili illah waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuun 44 aayadood wax ku dhadhow baa qur-aanka ku soo arooray oo masalati alcafwi wasafxi ka warramaya
in dadka la cafiyo ama la dhaafo ama aan wuxuu loo qabanin ka warramayaa soo arooray. labadan aayadood mala aan idinku khatimo. ugu horeyn bulshada muslimka ah hadday laabto caafimaad qabto colaadidee ma jirto. colaadi waxay timaadaa maxay? markay laabtu bokooto. soomaalidu maxay tidhaahdaa gacantu intaanay xumaan afbaa xumaada. afxumaa ka horeysa maxay? gacanta. hadday laabtu caafimaad qabto dadku nabad buu ka shaqeeya, colaadaha iyo dhibti iyo mashaakil uma timaado. sida awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta inay yihiin mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim. dadka mu'miniinta isu hilowgooda iyo isu naxariisadkooda iyo isjacaylkoodu wuxuu la mid yahay sidii jidh qura oo qayba hadday xanuunsato qeybta kale soo jeed iyo xanuun ay la qabto. haddaba ba labadan aayadood ila fiirso. labadan aayadood waxay ka waramayaan qiimaha ay leedahay laabtu inay caafimaad qabto. mu'miniintuna xoogoodu inuu mas'aladan ku xidhan yahay. ilahay wuxuu leeyahy haddaa idinku laabtiinu caafimaad qabto waxa gaalo iyo munaafiqiini mareegayso oo dhami waxba idinma yeeli karaan. haddaydan see laabtiinu caafimaad qabin idinkaa isdiliyo isku madhanoo kuwa kalena way idin gumaysan. markaa waa laba aayadood oo qur-aan tilmaamaya. aayadda koowaad ilaahay wuxuu leeyahay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya in allaha bima yacmaluuna muxiit. gaalkiiyo munaafiqa ilaahay wuxuu yihi haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan, hadday dhibi idinku dhacdana way ku farxaan. waa calaamada gaalka iyo munaafiqa lagu yaqaano. ka waran adigoo muslima haddaad saa noqoto, haddaad reer hebel marka la gumaadana faraxdid, markay guuleystaanna naxdid, muslimiintu markay guuleysato naxdid, gaalku markuu ka guuleysto faraxdid. waa sifadii gaal iyo munaafiq ilaahay ku sheegay baad adigu qaadatay. si awgeed baa ilahay wuxuu leeyahay kuwa gaaleed iyo munaafiqeed haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan, hadday dhibi idin haleeshana waa ku farxaan. kaasi waa iyaga iyo qaabkay u fakarayaan. laakiin idinka maxaa dhacaya? tataquu haddaa idinku sabartaan, ilaahayna ka cabsataan oo walaalnimadiina iyo alla ka cabsigiina uu jiro, laa yadurukum kayduhum shay-a. waxa ay dhib wadaan oo dhami waxba idinma geysan karaan. u fiirsa aayadda qur-aan hadda, laa yadurukum kayduhum shay-a baa ilahay yihi. waxa makriya ay xadhig wareeg wadaan oo dhan waxba idinma yeeli karaan. waayo in allaha bima yacmaluuna muxiit baa ilaahay yihi. waxaan ay wadaan ilaahay waa ogyi. ilaahay baa koobay baa la yidhi ka seexda. haddii laakiin cagsigu uu dhaxo maxaa dhacaya? ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyay waatiicu llaha warasuulah. alla iyo rasuulkii aqbala. waa jidka walaalnimo iyo calolfayoobaad iyo waxaan idinku dhacayaan. walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin. ilahay wuxuu ina leeyahay alla iyo rasuul baa adeeca. war nisaaca iyo isqabsiga iska daaya. nisaac iyo isqabsigu wuxuu yimaadaa markay dee laabta xumaato, dabeetana waa la isqabsadaa. maxaa ka ratibmaya? markii hore maxaa la yihi? wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-a. markana maxaa la yihi? markay laabti xumaatay colaada iyo dagaaladu dhexdeena ka dhacaan, fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilaha yihi. kalimat lfashli fi luga dacfigaa la yidhahdaa. waa liidan doontaan, dowladnimadiina iyo xooggiinuna way tegi doontaa baa ilaha yihi. maanta caalamulislaami maxaa ka jira? marka hore calooshaa xumaatay, kadibna waa la isqabtay, kadibna waa la isdilay, kadibna gaalkaa loo kala dheereeyey, kadibna waa la daciifay, kadibna dowladnimadii baa la waayey, kadibna waa layna gumaystay. markii horena waxaa layna yidhi laa yadurukum kayduhum shay-a. markana waxaa layna yidhi maxay? fatafshaluu watadhaba riixukum. haddaba ayuha alaxiba, qof ahaantaada markaad tahay
haddaad rabto inaad caafimaad qabto, jaamacadda Leeds agtiina ku taalla, professor ka mida wuxuu iclaamiyey inuu dhigayo course ku saabsan caafimaad qabta laabta iyo dadku inay iscafiyaan iyo musaamaxa, oo dabeetana wuxuu leeyahay xanuunada ugu badan ee bini aadam ka dhaca cuqadka nafsigay ka dhashaan buu leeyahay. haddii dadku laabtoodu caafimaad qabto, caafimaadkaa faafaya. korska markiiba saacaduu ku buuxsamay baa la yidhi, dadkuba waa bukaa. yani waxaan leenahay intaan Leeds iyo meel kale laynooga sheegin, ilaahay baa wuxuu inoo sheegay hadday laabteennu caafimaad qabto, kow inaynu inagu caafimaad qabayno. hurdo fiican iyo calool fiican iyo cibaado fiican oo rabbi aqbalo iyo waxaad ku cibaadaysanayso rabbi kaa yeelo iyo dadka muslimiinta oo ku aqbala. dadku qofka laabta xaadhan lama colaadiyaan, laakiin tit for titkaba ayaa beledu ka dhacda. adna intan u geysa, adna intan kuu geysadu ma dhammaato. laakiin dadka musaalimkaa dadkuna wuu la nabadgeliyaa, waa badbaadiyaa, waa la musaalamoodaa. idan qof ahaantaada waad ku caafimaadaysa. hadday laabtaadu caafimaad qabto, waxtar bay kuu tahay diin ahaan iyo caafimaad ahaan, adduunya ahaanba. waa mar labaade ka bulsho ahaan jiritaankeennu wuxuu ku xidhan yahay in badan oo ka midi laabteennu inay caafimaad qabto. ilaahay baa inoo ballan qaaday haddaynu sidaan nahay oo sabir iyo taqwo iyo alla ka cabsi uu inagu jiro, kaydka cid kale waddo oo dham inaanu waxayna yeelaynin. haddiise aynu cagsiga nahay oo markaasi inagu isu xiniyo weyn nahay oo colaadii iyo cadhadu ina dhex taalo, in jabkani jirayo. waxaa markaa habboon qof waloo muslimiba meesha ugu habboona uu ilaaliyaa inay qalbigiisa noqoto. in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaamikum, sidaa u egtiin iyo qoloftiina ilaahay ma eego, ee rabbi wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum, qalbiyadiina iyo waxa ka ratibmee acmaasha ah ayaa rabbi eega. waxaynu u baahanay meesha rabbi eego inaynu tahirno. qur-aanka sifaadka ambiyada ay dacwaday wadaan waxaa horeysa wayuzakiihim. bale nebi ibraahim markuu ducaynayay qur-aanku siduu usoo naqliyey taskiyaduu dambaysiiyey. rabbanaa wabcath fiihim rasuula yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim weeyaan. ilaahay markuu sheegay in dacwadaa u aqbalay, saddexda aayadooda kale ka waramaya taskiyaday horeysiiyeen. culamadu waxay dhahdaan lafta qur-aaniya baa ku jirta oo ah inay taskiyat lquluub ka horeyso tacliim lkitaabi walxikma. tilaawat lkitaab ay tabliiqiyadu weeyaan. ama tacliim lkitaab wasunna inay ka horeyso maxay? taskiyat lquluubku, in qalbiyada la nadiifiyo, la rabeeyo. qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha baa ilaah yidhi. waxaa liibaanay cidda naftiisa tahirta. inaha laa tacmal absaar walakin tacmal quluub alatii fi suduur. indhaha lama beelee waxa la beelaa baa rabbi leeyahay, kuwa laabtaa la beelaa. laabta haddaad la-dahay indhahooda waxaa ka sokeeya indhamaha. laabta indhahoodu waxay arkaan marka wixii rabbi jecel yahay. wixii rabbi jecel yahay ayay arkaan. waxa rabbi jecel yahay haddaad aragtana thawaabka iyo ajarkaad helaysaa kaala weyn wax kastoo lagu geystay. in dhib lagu gaarsiiyo adna aad intii goosato waxa ka ajar weyn. walaman sabara wagafara ayaa ka ajar weyn. ayuha alaxiba, kelmadan qeybteeda hore waxaan kusoo koobayaa inaynu maxay rabbigeen tala saarano oo uu ahaado waxa mudnaanta aynu siinaynaa laabteennu inay caafimaad qabto. wa ilaa darsin aakhar in shaa allahu tacaala baynu kaga warramay haddii wakti loo helo in laabtu caafimaad qabto maxaa kugu saacidaya, mal asbaab maxay markaad samayso ayay noqonaysaa laabtaadu inaad caafimaad qabtaa. in shaa allahu tacaala waxaynu ka dhigi
درس آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.